runtii farxad weyn bay noo tahay maanta inaynu daah furno hay'adda saadaasha hay'adda duulista hawada ee rayidka ah qalabkeedii casriga ahaa oo aad u heer sareeya oo ay ku shaqeynayso laga shaqeeyay qalab sare oo darajadiisu sareysayna ah geed socodka aynu maanta marayno inaynu dabaaldegno oo ku beegan maalmihii 60 guurada xorriyadda Soomaaliyeed waxna waa qayb weyn baa ku lahaydeen oo idinka buddi u ahaa ilaa burburkii dalka inay gacanta ku soo haysaan hantidii ka soo shaqeysaan intii ka dambeysay 2000 ilaa haddana marba dawladnimada Soomaaliyeed heer bay soo gaadhaysay waxaan xasuustaa 2017 markii dawladdu madaxweyne Farmaajo la doortay xukuumadda la dhisay waxyaabihii ugu horeeyay ee golaha wasiiradu qaybihiisa kala duwan ay ka shaqeeyaan oo tubta dhaqaalaha ay qayb weyn ka ahayd halkee baynu ka maraynaa duulista hawada awoodihii ay qaran ahaan lahayn maamulkeedii maalin kasta oo axada shir ayaanu yeelan jirnay waxay ahayd benchmark check la eego halkeen maraynaa maanta isagoo markaa warbixin jiray mas'uuliyiinta wasaaradda Nairobi inuu shaqaale la kulmo ee kaawo iyo xafiiskii Nairobi tago Canada la kulmo ee kaawo xarunteedii isagii mas'uuliyiinta kale ee wasaaradda mar walbana madaxweynaha runtii iyo ra'iisul wasaaraha si dhow ay ula socdeen ugana warhayeen in aynu xaq u leenahay qaran ahaan inaan cid kale noo maamulin arrimaha uu ka sheekeeyay wasiir Omar iyo Axmed Bay ka sheekeeyeen kuwa naga hor yimid hadbana tala qaran sidii looga gudbi lahaa iyo halkii looga gudbi lahaa laga lahaa ay ahaayeen waatan la soo wareegnay hawada madaxweynuhu noo daafuray maantana aynu marayno heer dhismaha la casriyeeyay iyo xarumaha waaweyn oo aynu ku shaqeynayno qaybaha kale dawladda iyo wasaaradda duulista ku dheedeeya gaadiidkaba aynu marayno waan gaari doonaa heer madaar weyn oo caalami ah oo magaalada ka baxsan aynu dhisno waa inay istaashaa Soomaaliya way u qalantaa guud ahaan madaaro badan oo aynu meelaha kala duwan maadaama halbowlo weyn aynu ku jirno caasimaduna madaarka ugu weyn ay yeelato sida caasimadaha kale adduunka madaar ka baxsan oo caalami ah oo qaadi kara duulimaadyo fara badan watii marka Axmed uu ku warbixinayay traffic-ga in maraya hawada inuu aad u badanayo markasta oo systemkeenu ku shaqeynayno iyo awoodeenuba ay kobco marka madaar weyn oo caalami ah oo u qalma gaadiid inta ka badan oo ku xidha yimaada isaga kala goosha adduunka dhinaciisa kale oo barbar socoto adeegyadii kale ee aynu qaban lahayn shaqo abuurkii barbar socdo horumarkii dhaqaaluhu isaguna barbar socdo kaargoogi keeni kara waa halka aynu hiigsanayna insha Allah inaynu gaadhno maanta halkan aynu joogno haddaan soo gaadhnay balaqaadkii madaxweynaha iyo xukuumadda ahaa waynu sii ballaarin karnaa amniga inaynu ka shaqeyno inaynu ballaarin karnaa haddii waddankeena Soomaaliya deganaansho insha Allah waana helaynaa maanta iyo shalay aad bay kala duwan yihiin waa waddan isku filnaan kara khayraad kala duwan oo badan leh hadday bad tahay berri tahay xoolo tahay dhinac walba tahay waa waddan nolol aan meel kale isaga loo soo raadsan doono insha Allah aan meel kale dadkiisu ku raadsan doono waxa kamid oo kale Soomaaliya inaynu hawlo fiican baa ka socotay oo wasiirka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha kulligeen xukuumaddu ka qabatay waxaan dhiirigelinayaa intaan muddaxileedku dhammaanin insha Allah iyadana inaynu arki doontaan innaga maanta marayna inaynu liisan bixin karno madaaradeenii certificate bixin karno bayloodadii iyo injineeradii aynu bixin karno waxaasoo dhan waxa saldhig u ah siyaasad cad oo degan in la helo iyo shuruuc dawladnimada sideedaba iyo institutionkii hay'adaha dhismahooda waa in siyaasadii jirtaa degan waa in shuruucdiina jirtaa aragtida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay dalkan waa in siyaasad cad uu ku shaqeeyaa shuruucna la dhisaa waa ogtiin golaha wasiirada ilaa 57 intaan xasuusto ugu yaraan sharci ayaa 3 saniya badhkii aanu hadda joognay maray hadayna ka badnaynba iyo axdiyo caalamiyo oo waaweyn oo golaha maray oo iyagana aynu qayb ka nahay ku talagalkaasi waxa ahaa siyaasadii hay'adda laga shaqeeyo sharcigii dhismaha hay'adda iyo duulistana in laga shaqeeyo maanta hay'adda dhismaheedu waa arkaynaa qalabeynteeda halku marayo Axmed Dikreete madaxweynuhu ku joogaa iyadoo sharcigaas lagu shaqeynayo regulation-na imanaya si faahfaahiya marka aynu ka wada shaqeyno qarannimadeena baarlamaan xukuumad shacab dadweyne iyo muwaadin kasta qof kasta xil baa saaran shaqaalaha si u soo dhabar adeegay ee ka soo shaqeeyay Nairobi soo wareegay
ku dhiiraday inay ka shaqayn karaan caasimadoodii dalkoodii ka shaqayn karaan ku dhiiraday inay hadda shaqadaa wadaan aynu indhaheenna ku saari karno wiilal iyo gabdhaba run ahaantii haddaynu gacmaha isqabsanno meel ka sii durugsan halkan baynu gaadhi karnaa madaaro caalamiya oo waaweyn ayaynu dhisan karnaa diyaaraddii Soomaaliya Airlines sumcadda adduunka ku lahayd baynu soo celin karnaa hay-ad lagu naaloodo lagu soo hirto oo weyn iyo wasaaraddii hagaysay siyaasad ahaan oo ballaaran baynu samayn karnaa marka waxaan leeyahay hambalyo aad baan idinku hambalyeynayaa si rasmi ah maanta qalabkaasi inoogu daahfurmay waxaan leeyahay guulaysta halkaana ka sii wada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi